halkani waa b b c oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban kuwa efemyada magaalooyinka qaarkood iyo internetka ciwaankayagu yahay bbcsomali.com. arooryo suuban idilkiin baa kheertana dhegaysataay waa isniin 10 abriil saacadda afrikada barina haatan waxay tilmaamaysaa 7 ogowa wararkan idaacaddan subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid ah qoraalle sir xasaasi ah oo laga helay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka. ergeyga soomaaliya u magacooday wadaxaajoodka somalilan oo ka warramaya wuxuu jabuuti u tegey maadaama aan rabno inaan bilaawno wadahadaladii soomaaliya iyo somalilan waxaan madaxweynaha ugu imid inaan wixii tala ah iyo fikira oo asaga maadaama uu yahay oday soomaaliyeed uu yahay odaygii mandiqada uu yahay inaan bal ka dhegaysto. hare senegaal ku taalo oo midabkeedii isbedelay iyo qoysas ku quudseegay wararkii ciyaaraha intaa dheer soo saaraha barnaamijku waa cabdiraxmaan cali dhimbiilan oo axmed nagaashiin oo idinla socodsiinaya subax wanaagsan saaxiibayaal. waatay dhegaystayaal qodobadaasoo faahfaahsanahay noo dambeeyaane bal marka horese warkii dunida iyo axmed cadceed. axmed mahadsanid axmed. waaxda cadaaladda dalka maraykanka ayaa baaraysa daraasiin dukumentiyo sir ah oo la dusiyey laguna dhex arkay baraha bulshada dhowr maalmood ka hore. qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ayaa soo jeediyey in mowduucyada ay farta ku fiiqayaan ilo reer maraykan ah balse aanay meesha ka saaraynin suurtagalnimada ah inay ku log leeyihiin wakiilo taabacsan ruushka. ra-iisul wasaaraha britain rishi sunak ayaa ku baaqay in awood qaybsigii waqooyiga ireland lagu soo celiyo 25 sano guuradii ka soo wareegtay heshiiskii jumcada wanaagsan. hay-adaha awood qaybsiga ayaa u naafoobay safgaranwaa ku saabsan qaabaynta bayac mushtarka kadib bixitaanka britain ee midowda yurub. madaxweynaha dalka faransiiska ayaa sheegay in yurub looga baahan yahay diyaarinta iyo ku dhaqanka istiraatiijiyadda ka madax bannaan maraykanka iyo shiinaha si aanay dhexda uga gelin waxa uu ugu yeeray dhibaato aan qusaynin. waxa uu sheegay in midowda yurub aanay wax dan ay ugu jirin xiisadda sii kordhaysa ee u dhaxaysa dalalka shiinaha iyo taiwan. 2 xildhibaan oo dimuqraadiyiin ah oo toddobaadkii lasoo dhaafay laga eriyey aqalka wakiilada gobolka tennessee ee dalka maraykanka ayaa sheegay in ay rajeynayaan dib u soo cesashada kuraastooda goordhow. deegaanadooda ayaa muujiyey in loo magacaabi doono si kumeel gaar ah tan iyo inta ay doorasho laga qabanayo. dooni 400 oo muhaajiriin ah ayaa looga cabsi qabaa halis ay ugu jirto inay ku quusto badda mediteraneanka. doonta ayaa sabaynaysa iyadoo aanay cidna xakameynaynin waxaana gudaha u galaya biyo. ugu dambayntiina b b c da ayaa ka hor timid in lagu sunto warbaahinta dowladdu maalgeliso kadib markii ay sidan ku calaamadisay shirkadda twitter mid ka mid ah bogagga rasmiga ah ee b b c du ku leedahay twitter-ka. b b c ayaa sheegtay in ay madax bannaan tahay islamarkaana maalgelinteeda ay ka hesho lacagaha ka soo xarooda ruqsadaha ay bixiso ee dadweynaha. warkii caalamku waa nagay taas aan didmu ku celiya axmed nagaash. aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed cadceed oo warkii subaxnimo aynu la marinayay ayuu kaasi ahay. dhegeystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. waatay dhegeystayaal sidii aad warkaba ku maqlayseen aan ku bilaabe waxaa soo baxay kumanaan ama boqolaal dokumenti oo sir ah oo ka fakaday ama laga soo shaaciyey wasaaradda gaashaandhigga ee bentagonka ee dalka maraykanka kuwaasi oo ka koobnaa xogo sir ah oo aad loo ilaalinayay oo qaarkoodba ay ka muuqato shaabadaha ku yaala inay yihiin dokumentiya sir ah oo aan loo ogolayn in ay shacabka iyo cid kaleba gaadhaan. wararkaasi haddaba waxaa isha ku hayay cabdiraxmaan cali dhimbiil oo faahfaahintooda inoo haya oo haatan stuudiyahay la fadhiya. cabdiraxmaan. axmedow waad mahadsan tahaye maraykanku waxa uu la halgamayaa amaan idhaahdee ku howlan yahay inuu caddeeyo ilaha ay ka yimaadeen xogo sir ah oo aada loo ilaaliyey kuwaas oo maalmihii u dambeeyey baraha bulshada ka soo muuqday kuwaas oo ku taxalluqay xogo ku saabsan waddamadii maraykanku ay isbahaysiga la ahaayeen oo ay ka mid tahay ukraine oo waraaqahaas sheegayeen meelaha ay u liidato xilligan dagaalku socdo. bentagonku waxaay maanta sheegeen in waraaq ay u gudbiyeen waaxda cadaaladda taasoo ay weydiisanayaan in la baadho goobihii ay ka yimaadeen waraaqahaas iyo halkii ugu horreysay iyo ciddii ugu horreysay ee xogtaasi faafisay. axmedo waraaqaha waxaa ku qoran xogo ay ka mid yihiin in washington ayba basaasayso waddamadii ay isbahaysiga la ahayd ee ay ka mid yihiin ukraine, south korea iyo israel. dabcan taasoo wejigabax ku noqon doonta siyaasaddii madaxweyne joe biden.
sidoo kale waraaqaha waxaa ku jira waxyaalo lagu tilmaamay khaladaad oo u muuqda in aanay sax ahayn kuwaas oo loo malaynaya in dadkii xogta helay ay dib waraaqaha ka bedeleen iyo in dabcanba kolkii waraaqahaas la diyaariyey ay ka ahayd in dadka lagu marin habaabiyo xogaha shakiga abuuraya waraaqaha ku yaallay waxaa ka mid ah in ruushka dagaalka ay Ukraine kula jiraan ay kaga dhinteen dad gaadhaya 190,000 ilaa 223,000 oo askari kuwaasoo dad dhintay iyo dhaawac ba isugu jira halka Ukraine oo dabcan filashada guud la filayay inay tahay cidda dhibta ugu badan gaadhay ay tiradeedu intaa ka yar tahay oo iyada 125,000 ilaa 130,000 dad gaadhaya ku dhaawacmeen ama ku dhinteen saraakiil Mareykanka ka socda waxay shabakadda wararka Reuters ay u sheegeen in waraaqahani u muuqdaan kuwo la qurxiyay oo cid kale samaysay si ujeedkoodu yahay in la wiiqo danihii Mareykanka madaxweynaha Ukraine wuxuu ku tilmaamay in xogtani tahay xog sheekafaneed ah oo cid gaar ah curisay isagoo ruushka ku eedeeyay inay ku jiraan qorshe marin habaabineed oo adduunka xog khaldan ugu baahinayaan waraaqahaas haddaan xogtooda ku noqono mid ka mid a waxaaba ku qoranba inay soo baxday 23 February oo dhowaan ahaa waa xog ay ku qoran tahay warqad si gaara lagu calaamadeynay iyadu sir tahay waxaa ku jirta in Ukraine qalabka hawada u ilaaliya uu sii daciifayo suuragalna ay tahay mayba inuu meesha ka baxo waraaq kale waxaa ku qoran in Mossad ama idhaahdee waaxda sirdoonka Israa'iil ay ka dambeysay mudaharaadkii ka dhacay Israa'iil ka dhacay mudaharaadkii ka dhacay Benjamin Netanyahu lagu sameeyay ka dhacay isla dalkaas kuwaas oo ujeedku ahaa in qorshaha dalka wax laga bedelo inkastoo waaxda Netanyahu ay sheegeen in xogtaasi aanay ahayn xog sal leh South Korea lafteedu waxay sheegaysaa in waraaqaha waxa ku qoran ay waxba ka khuseyn isla marhaantaana ay tahay hawl u taala Washington aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan cali dhimbiil oo xogta waraaqahaasi ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee sirtaha inoo faahfaahinayay dhegeystayaal bal haatan aynu ku soo noqono geeska Afrika iyo wararkii Soomaalida waxaa shalay gelinkii dambe magaalada Djibouti ku kulmay madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Geelle iyo ergeygii cusba ee madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya u magacaabay wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed oo tan iyo intii la magacaabayba waday kulamo gaargaar ah oo uu la yeelanayay dadka arrimaha wadahadallada labada dhinac si uu wax uga ogaa ayaa sheegay in kulanka ujeedadiisu tahay sidii uu taageero siyaasadeed ugu raadin lahaa qorshaha uu wado waxaana hadalladiisii ka mid ahaa kulanka madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu daarnaa laba arrimood arrinta koowaad waxay ahayd fariin iyo salaan aan uga siday madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxweynaha soo gaarsiinay arrinta labaadna waxay ahayd maadaama aan rabno inaan bilaawno wadahadalladii Soomaaliya iyo Somaliland waxaan madaxweynaha ugu imid inaan wixii tala ah iyo fikir ah oo asaga maadaama uu yahay oday Soomaaliyeed uu yahay odaygii mandiqada uu yahay inaan bal ka dhageysto iyo sidoo kale anagoo rabna inaan dalalka gobolka aan taageero siyaasadeed uga raadino wadahadalladaas marka booqashadani waxay ahayd mid ka mid ah kulamo iyo jawla aan ku sameyn doono insha Allah taala gobolka marka arrimahaasay daarneed kaasi waxa uu ahaa cabdikariin xuseen guuleed ergeyga uu madaxweynaha Soomaaliya u magacaabay wadaxaajoodka Somaliland iyo Soomaaliya wadahadallada labada dhinac ayaa soo maray doorar kala duwan iyada oo aan ilaa haatan natiijo la taaban kara aan laga gaadhin tan iyo markii ugu horeysay labada dhinac ay kulmaan ku dhawaad muddo 10 sano ka hor ah haatan halka dhageystayaal wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da saacaduna haatan waxay tilmaamaysaa 7:09 daqiiqo BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa tahay dhegeystayaal bal haatan wali wararkii Soomaalida ayaynu ku jirnay waxa muddaba haatan socday gulufka ay ciidamada Soomaaliya ku qaadeen xogaga xarakada Al-Shabaab ee ka dagaalama guud ahaanba Soomaaliya waxaase ay wararku sheegayaan inay shacabku aad ula yaabeen in aabe iyo 7 caruur oo uu dhalay oo wiilaliye hablaba isugu jira ay dhammaantood ka tirsan yihiin ciidamada dawladda oo qaarkoodna ay ku jiraan militariga kuwana ay ku jiraan booliska oo dhammaantood ka mid ah unugyada ama cutubyada dagaalka kula jira ciidamada ama xogaga xarakada Al-Shabaab aan idhaahdee Foos Ciid ayaa warbixintaasi inoo haysa
sanadkii hore Soomaaliya waxaa ka bilowday dagaal ka dhan ah al-shabaab iyadoo qorshuhu uu ahaa in lagala wareego gacan ku haynta deegaanada ay ku sugan yihiin. Dagaalkaasi waxaa jiray sheekooyin badan oo ku gadaaman. Waxaa ka mid ah qoys dhan oo ka kooban 7 ruux isla markaana ku midoobay aragti ahaan in ay ka mid noqdaan ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ee dagaalka kula jira al-shabaab. Ciidamada ka mid ah qoyskaasi waxa ay isugu jiraan boolis iyo military. waa 7 ruux oo 2 ka mid ah ay dileen al-shabaab sida qoysku ay noo xaqiijiyeen. Aabaha qoyska waa gaashaanle sare Maxamuud Maxamed Ceyrow waxa uu la soo shaqeeyay dawladdii Maxamed Siyaad Barre xilligaasina waxa uu ahaa gaashaanle. Waxa uu ka warbixinayaa sida ay ku suura gashay in caruurtiisa ay wada noqdaan askar iyo waxa ay ku doorteen. والله أنا فرحت سعيدة هي بيتها هذا إلى سببته وحوي وعربة قفكوا وهو يا عرقي سن قضام وقتها مركا هل مدونة ماشي جوجانا أنا قصكان نورانا يا ما بتشربها أما لا شعبا نقونا يا هو أنا أم هيدي لين أما هسكداين ملهم مجرو مركا درين كاسوا وضا قبنا waxay go'aansadeen garabka iyo istaagaan oo waxa weeye waxaan hay ila noqdaan oo waxa weeye cadawgaas aan taargi oo noo noqdo Xamdi Maxamuud Ceyrow waa curada reerka waxa ay goobjoog ka ahayd meel uu khudbad ka jeedinayay mid ka mid ah hogaamiyayaashii al-shabaab ee xilligaasi la wareegay Xaradheere. Waxa ay dhagaheeda ku maqashay fariin loo dirayo dadka deegaanka oo ku saabsan in cidina aysan taageeri karin aabaheed gaashaanle Ceyrow haatanna lagu howlan yahay sidii loo soo qaban lahaa. Waxa ay ka warbixinaysaa wixii dhex maray iyada iyo hogaamiyihii xilligaasi khudbeynayay. Hanta askar noqono waxaa nugu dhaliyay cadawga dalka haysto aniga hadda kula hadlaayo family aan u weynahay baa cadawga hortana soo barakiciyeen aabahay markii uu ka baxay qofkii ku xigorta aniga oo hal maalmaha kamid waan xasuustaa anoo dugsi ka imaado waqtigaas waxaan imaaday nin la dhahayo kuba ku dukade oo hadda khawaarijta kamid ah oo qodbeynayo ninka la dhahayo yiri Ceyrow oo Mooryaanka ah qofkii dhihi doono dhahay ehel buu yahay adeer uu yahay qofkii dhihi doono hadhow buu yiri hadeertaana ka soo reebo war murtadiinta haddii kale tacaalooshiisan geedaa ku saabinaynaa buu markuu intaas afkiisa ka soo baxday ani ciidan ku roga kuba ku dukade markaa caradii ku rogay waa ka cararay aabahan duurka ku ogaay aabaan u tagay aaba saasa dhacdan iri aabi aniga hore soo raacnay oo bas duurka ku ugaarsan jiray cadawga sidii aaba isku soo raacnay waxaan tagay gaal kacyo maanta alxamdulillah waxa farxad iyo maanta aniga hooya maanta dalkayga anoo cid aan bariyaa jirin aan dib u soo laabto. Mustafa Ceyrow oo dhankiisa la hadlay BBC-da ayaa ka hadlay dhibaatada reerkiisa ay u geysteen al-shabaab iyo labada walaalaha ah ee isaga ka weyn ee ay dileen. Sidoo kale waxa uu sheegay in uu walaalihii u aaray una aari doono marar kale. Haddii aad cad u yeelato qasab waaye dhimasho imaanayso marka waxaan leenahay walaalahey labadii wiil ugu weyneed jaamac iyo faarax bay Ilaahay u naxariisto khawaarijtana waa ka aarsan doonaa midaas mid la iskaga haraayo noqon doonto horena waa ugu aarsanay haddana waa ka aarsananaa hadduu Ilaahay yiraahdo marka Ilaahay u naxariistaan leeyahay labadoodaba. Sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2022 waxaa sidoo kale furimaha dagaalka ka soo muuqday wiilal walaalo ah oo ku biiray dagaalka deegaanada Soomaaliya looga saarayo al-shabaab. waxa ayna kala ahaayeen Cabdifataax Cali, Cabdixakiin Cali iyo Cabdi Asad Cali. aad bay u mahadsantahay Foos Ciid oo warbixintaasi inala socodsiinaysay bal haatanna war ka duwan kuwaasi iyo wararkii Ramadaanka ah. tartan xifdiga quraanka kariimka ah oo lagu qabtay deegaanka Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa waxa kaalinta koobaad ku guuleysatay inan agoon ah oo la yiraahdo Sucdi Barre Nuur waxaanay ku tartamaysay 30 jis oo dhameystiran. waxa haddaba inantaa la yaab leh inuu macallin u ahaa inantaasi walaalkeed oo isagu baray quraankaasi ay ku guuleysatay tartankiina ay kaalinta koobaad ku gashay. macallinkii walaalkeed ahaa oo u waramay Foos Ciid ayaa faahfaahinaya. magaydu halla Maxamuud Barre Nuur. Maxamuud inooga waran gabadha tartanka ay ku guuleysatay iyo sida uu u dhacay. tartanku waxa qabatay dawladda Wajir County ورفعها لحد الصف كاونتي ودعاي كاونتي والبان أفر أول كي إيمانيسي قيب صوت جيس كو ترتميس قيب كو ترتميس شاني تمن قيب طبعا كو ترتميس قيب شن جيس كو ترتميسو مركا قول أنا مو كو قوليستي أو كسعتي مغالي أو قوري ولا شيء بأهد قراك أنا ودمي أن رنتي ودلال فرب بغيني جهدي وانكو بحني أنه الدعاء دي وقوري قوض السمن أسكي عايونيني انت بدن أن مسابقة tartan oo maxalli ah markor dhacday oo Wajeer South ka dhacday ila usoo baxay markii usoo baxay hadana miisig gooni saarnay
oon keligii la tacaalaynay maalinkii oo kale 5 juz ilaa 6 juz baan ka dhegaysanaynay. gabadha marka qur-aanka aad u dhammaysay adigu ee aad ahayd macalinkeeda ee haatan ku guulaysatay tartanka da'deedu waa imise sano jir? Gabadha waa 12 jir. marka gabadhu maxay ku guulaysatay, maxaa lagu abaalmariyey markii tartanku uu soo idlaaday? tartanku soo idlaaday gabadha waxaa lagu abaalmariyey 200 kun ay markii ku abaalmariyeen gadaalna waxbaa looga dardaray oo gafanaha ugu dardaray ilaa 30 kun lacag gaarayso. kadibna waalidkeed iyo macalinkeeda waxaa loo ballan qaaday inay xadka la geynayo. ardaygeedii kusii xogay oo soo galay lambarka labaad waxaa la siiyey 150 kun. kan kusii xogayna 100 baa lagu abaalmariyey 100 kun. gabadha marka sidee ayay kugu suura gashay maadaama adigoo walaalkeed aad macalinkeeda ahayd in ay kaalintaas ka soo muuqato? markood ilaahay baa i waafajiyey subxaana watacaala. iyadana waa la dadaalayay oo taxfiidkii aniga andhiga ay akhrisanaysay. kadibna markii ay lamboon ka soo qaaday tartanka maxalliga ah oo county intaan la gaarin county kii oo wajaha south dhexdeeda ahaa, haddana dadaal gooni kusoo bixin oon keligeed baan gaar u fariisanay oon maalinkii ka dhegaysanaynay. dadaalka markaan ku bixinay gadaasheed unbay yaan aragnay inay miro soo saarayso oo ay tahay qof qur-aanka xifdiyey macnan tajwiidkiisa iyo axkaamtiisa dhan. qoys ahaan marka maxay idinkaga dhigan tahay in gabadhiinnii ay ku soo guulaysatay kaalinta koowaad ee tartanka qur-aanka kariimka ah 30 juz? runtii gabadha waxay siiyeen fursad oo waxbarashada keli ay ku gooni yeelaysa maalinkii oo dhan 24 saacadood, marka qaar habeenkii qaybihiisa dambe inay wax akhrisanayso. adiga jaanis baa la siiyey oo ana laga caawiyo wax walbay u baahanta. ma iskuul bay dhigataa oo gelina dugsiga ayay dhiganaysay mise dugsiga oo kaliya ayay u go'day si tartamadan ay ugu guulaysato? dugsiga iyo adiga qayb yar iyadana kutubo aan ku akhrino oo dugsiga qayb yar madrasa ka mid ahaan labada qayb isku haysatay. iskuulka ma dhiganayn qur-aanka iyo waxay wadiyeen kutubta yar oo cilmiga diiniga. bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal. wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saamaynta ay leeyihiin. bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah. haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka. bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo. bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta. waatay dhegeystayaal ha u daymalaanin bogagayaga internetka ee bbcsomali.com wararka xogaha dhaadheer aanu ku soo faahinay ee ku saabsan dokumentiyadii sirta ahaa ee laga faafiyey wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka iyo sidoo kale nin isaguna ruush ahaa oo faafiyey sirta ciidamada calooshooda u shaqaystayaasha ah ee ruushka ee lagu laayay dagaalka Ukraine oo isaguna dalkaasi ka baxsaday kadib markii uu sirtaasi faahfaahiyey oo ruushka dowladdiisa uu ka cadhaysiiyey. waatay bal haatanna xagga iyo Afrikada galbeed iyo dalka Senegal. harada caanka ah ee ku taala dalka Senegal ee midabka biyaheeda laga dhigay magaceeda oo loo yaqaano harada cas oo dalxiisayaal badani ay u soo hiloobaan ayaa haatan daadad badan oo ku soo rogmaday ay midabkeedii dooriyeen. arrintaas ayaa haddaba saameyn taban ku yeelatay in ku dhow 3,000 oo qof oo ku nool daafaha haradaasi oo dalxiiska dakhli ka soo geli jiray dadka dalxiisayaasha ee halkaasi taga. aadan saalimiin ayaa warbixintaasi inoo haya. Moguya waxa uu si quusa u eegayaa biyaha harada casaan xigeenka ee Senegal marka laga reebay inaysan ahayn midabkaasi casaan xigeenka, laakiin haatan waa midab cagaaran oo calas ah. waa farsamo yaqaan oo waxa uu leeyahay dukaan dhowr tallaabo oo u jira xeebta harada. maalintiisa waxa uu ku qaataa nadiifinta iyo tirtiridda astaamaha taariikhiga isagoo sugaya macaamiishiisa. waxaan shaqadan ka qabanayay in ka badan 30 sano tuuladan. haradani aad bay muhiim iigu tahay siday waalidkeenba ugu ahayd. ganacsigeenna wuu sii lumayaa. caadiyan suuqa waa u buuxaa, laakiin hadda waxaynu ku jirnaa xilli dalxiis. waxaadna arkaysaa sida uu maran yahay, wuu hooseeyaa, waxba ma jiraan.
harada redba oo rasmi ahaan loogu yaqaano magacaasi waxay ahaan jirtay mid ka mida goobaha dalxiiska ee ugu weyn senegaal dadku waxay uga soo safraan adduunka oo dhan si ay u arkaan midabka casaan xigeenka ee gaarka kaas oo ah mid naadira oo ka samaysmay milixda biyaha laakiin bishii sebteembar ee lasoo dhaafay daadad aad u ba'an ayaa wasaqeeyey biyahaasi oo cagaar u rogay taasina waxa ay saamayn ku yeelatay bulshooyinka deegaanka ee ku tiirsanaa harada waxaa ka mid a magawuten indiora oo madax ka ururka ururinta milixda deegaanka ma jiro midab bunni ah cusbo badani ma jirto inta badan dalxiisayaal ma jiraan socdaalkii dalxiiska aad buu u yaraaday marka haddii aanay dowladdu wax tallaabo ah qaadin ilaa xilli roobaadka soo socda xaaladdu waxay noqonaysaa mid aad u sii xumaata markii daadadku ay bilowdeen mas-uuliyiintu waxa ay sidoo kale fureen kanaalka harada si gurma degdeg ah loogu hagaajiyo biyaha roobka magueta ayaa waxa uu sheegay in taasi ay keentay cawaaqib xumo sannad kasta harada waxay soo saartaa 50 ilaa 60 kun oo tan oo milix ah laakiin tan iyo markii la sameeyey kanaalkan hawshani waxay noqotay mid aan suuragal ahayn maamulka ayaa sheegay inuu socdo qorshe gacan looga geysanayo xalinta dhibaatada waa kan jeg mbowa gudoomiyaha ururka deegaanka qaranka madaxweynaha ayaa laf ahaantiisa dalbaday in laga wada hadlo isla markaana la sameeyo qorshe howleed oo dib loogu habaynayo howlihii harada ee midabka bunniga ahaa si ay harada u soo ceshato midabkeeda bunniga ah iyo wixii ka sarreeya taas oo gebi ahaanba burburtay weli ma jiraan jadwal ama miisaanid rasmi ah oo ku saabsan sida saxda ah ee mas-uuliyiintu ay u caawinayaan dib ugu soo celinta harada xaaladeedii hore dad badan oo deegaanka ah ayaa cabsi waxa ay ku jiraan xilliyada roobka marka uu soo socdo waa farsamayaqaan maxalli ah moor oo mar kale ka hadlaya arrintaasi haddii tani ay sii socoto xilliga roobabka harada bunniga ah ayaa laga tirtiri doonaa khariiradda senegaal aad ayay noo cabsigelinaysaa qof walbo ayay cabsigelisaa waxaannu tagnay halka ugu sarraysa ee harada waxaana jooga doomo maran oo taagan xeebta ma jiraan wax dalxiis ah waxaad arkaysaa nin keligiis wax iibinaya oo waddada u dhow oo socda oo isku dayaya inuu iibiyo sawir gacmeedkiisa laakiin ma jiraan wax macaamiila waxaa jira dad horey uga qodan jiray milixda oo fadhiya kuraas waxay ahaan jireen tuulooyin milixa oo ku teedsan xeebaha haddana waxay u muuqataa inaanay waxba ka jirin aad iyo aad buu mahadsan yahay aadan saalimiin oo warbixintaasi inala socodsiinayey haradaasi basaliga ama pinknek la yidhaahdo ee ku taala dalka senegaal ee midab doorsoontay inala socodsiinayey bal haatanna wararkii ciyaaraha dhegaystayaal aynu eegnee ciyaar dhex martay oo xiise lahayd oo dhex martay kooxaha liverpool iyo arsenaal oo la saadaalinayey inay noqonayso tajaangoynaysa natiijada iyo sida loogu kala qaadanayo taajka horyaalka ingiriiska ayaa xalay dhacday oo aad loo xiiseynayey ibraahim geedda wacawaale oo ciyaartaasi daawaday ayaa faaladan inooga haya kulan aad u adag ayaa dhacay oo horyaalka ingiriiska ka Premier League waxaana lagu tilmaamay inuu ahaa kulankii ugu fiicnaa xil ciyaareedkan kulamada la ciyaaray Premier League ciyaarta oo ka dhacday Anfield galabnimadii shalay ayaa Liverpool waxay ku soo dhaweysay kooxda horyaalka hogaaminaysa Arsenal Liverpool inkastoo ay ka jajabneed oo sanadkan afarta sare xataa ay dhibco badan u jirto 13 dhibcood haddana waxa ay ciyaartay kulan lagu tilmaamay inuu ahaa kulankoodii ugu fiicnaa xil ciyaareedkan qaabka ay bandhiga u sameeyeen marka la fiiriyo si gaar ah qaybta dambe ee ciyaarta Arsenal ayaa bilowga ciyaartaba gool heshay oo u dhaliyay xidigooda Martinelli kaasoo ahaa goolkiisii 14aad ee xil ciyaareedkan uu ka dhaliyo Premier League sidoo kale Gabriel Jesus oo kulankiisii labaad ku soo bilowday tan iyo markii uu ka soo laabtay dhaawac waqtiga dheer ayaa goolka labaad siiyay kooxda Arsenal arintaas ayaa keentay in Arsenal 40 daqiiqo hore ee ciyaarta maamusho isla markaana la wareegto controlka garoonka Anfield oo taageerayaasha qeyrada badan ee garoonkaasi ku sugnaa uu aad u yaraa sawaxankooda balse inta aan la marin nasiinada qaybta hore 5 daqiiqo ka hor ayay heshay gool kooxda Liverpool oo ciyaarta dhan jawigeeda bedelay Mohamed Salah ayaana goolkaasi u dhaliyay qayb dambe markii la isku soo laabtay ay Liverpool guud ahaan la wareegtay maamulka ciyaarta iyadoo Arsenal ay difaac ku ururtay waxaana markii dambe heleen rigoore Mohamed Salah ayaana ka qasaariyay taasoo ciyaarta xiise gaar u siiyay ciyaarta jawi walba oo madadaalo iyo dagaal leh ay labada ciyaartooy ee labada kooxoodba ay soo bandhigeen dhamaadka ciyaarta 3 daqiiqo ka hor
robert famino oo bedel ku soo galay ayaa madaxa ugu dhaliyay liverpool goolka barbardhaca taasoo ciyaarta ka dhigtay 2-2 waana goolkiisii 10aad oo uu ka dhaliyo kooxda Arsenal hase yeeshee 6 daqiiqo ee ciyaarta lagu diray waqtiga dayacmay ayaa waxaa sidoo kale Liverpool ay sameysay dadaal xooggan oo ay ku raadinayso goolka guusha waxaase ka hor istaagay goolahayaha Arsenal Aaron Ramsdale oo sameeyay bandhigiisii ugu fiicnaa xilliyaareedkan laba badbaadin oo cajiibana sameeyay daqiiqadaha dhimashada ee ciyaarta arrintaasina waxay keentay in guud ahaan labada kooxood ay ku kala baxaan barbardhac 2-2 ah natiijo falanqayaasha ay ku sheegeen in ay ahayd mid cadaalad marka la fiiriyo bandhiga labada kooxood oo qaybta hore ciyaarta Arsenal ay maamuleysay qaybta dambena kooxda Liverpool ay maamuleysay falanqayaasha kubadda cagta gaar ahaan kuwa BBC-da ayaa isku raacay guud ahaan in kulankan uu ahaa kii ugu fiicnaa Premier League ee xil ciyaareedkan natiijadaasi ama dhibicdaasi Arsenal waxay siinaysaa hadda in 6 dhibcood ay ka sare marto kooxda Manchester City inkastoo City uu kulan u baaqsan yahay waxaa hadda Arsenal u harsan 8 kulan halka kooxda City-na uu u harsan yahay 9 kulan kulanka isha sida gaarka lagu hayn doono ayaa kulanka 26 bishan Abriil ka dhici doona garoonka Etihad Stadium ee kooxda Manchester City halkaas oo City horyaalka difaacanaysa ay ku soo dhaweyn doonto kooxda Arsenal oo hadda horyaalka hogaaminaysa kulankaasi ayaana loo sii calaamadiyay inuu yahay kulanka go'aan ka gaarista ku guuleysiga horyaalka Ingiriiska Premier League Arsenal waxay u baahan tahay inay badiso kulankaasi si dhibcaha u dheeraysato ama barbardhac hesho si uu Iran ay uga sii sikato Manchester City-na waxay u baahan tahay kulankaasi inay badiso si ay u soo qabato kooxda Arsenal oo doonaysa in horyaalkan ay ku guuleysato markii ugu horeysay muddo 19 sano ah guud ahaan City shalay kulankan ka hor Sabtidii ay 4-1 ku garaacday kooxda Southampton oo Haaland mar kale 2 gool dhaliyay 30 goolna sidaas ku gaaray Premier League taasoo keentay in farqiga Arsenal 8 dhibic ay ka sareyso hadda 2 dhibcood ay soo jiraan oo 6 dhibic ay Arsenal sareyso kulanna uu baaqsan yahay kooxda Manchester City si kastaba waxaa la daawaday kulan aanay ku khasaarin taageerayaasha garoonka joogay iyo kuwa shaashadaha ka daawanayay iyo kuwa raadiyaasha kala socday Ibrahim Gedo Cawaale BBC London aad iyo aad buu mahadsan yahay Ibraahim Geedo Cawaale oo warbixintaasi inaga siinayay ciyaarta xiisaha lahayd ee aadka loo daneynayay dhex martay kooxaha Liverpool iyo Arsenal bal haatana haddii aynu ogno wararkii kale caalamka wararka naga soo gaadhaya ayaa waxaa ka mid ah in dadka u dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka weliba xuquuqda haweenku ay ku eedeynayaan xukuumadda Taliban ee ka talisa dalka Afghanistan inay dalkaasi ka dhigtay jeel ay ku jiraan haweenka dalkaasi oo ay ku ragaadiyeen waa sida loo dhigay waxaana sheegayaan dadka xuquuqda haweenka u dhaqdhaqaaqa in ay arintaasi noqon karto dhaleeco weyn ama cambaar soo wajahda dowladda Pakistan aan idhaahdee Afghanistan oo hordhigi doonta in ay caalamka goodoon ka noqoto maadaama oo ay dumarka sidaasi u galeen ururka midowda Yurub ayaa isaguna shalay waxa uu sheegay in qaraarka Taliban uu ku yahay meel ka dhac qaanuunka dunida ama xeerka caalamiga ee dunida waxaanu sheegay oo digniin ugu soo jeediyey ururka Taliban inay go'aanadaasi dib ugu noqdaan haddiise ay ka noqon waayaan ay dhici karto in ay mucaawinada bini'aadanimo ee ay u gudbiyaan dalka Afghanistan ay hakin doonaan ilaa inta ay Talibanku ka noqonayaan qaraarada adag ee ay gaadheen idaacaddii subaxnimo ayaanu intaa kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal waxaynoo ballanaa 5 galabnimo inta ka horeysa sidaas iyo nabadgelyo